maalintii shanaad ee ololaha dhinaca doorashooyinka madaxtooyada Somaliland waa 10 cisho oo kaliya naga xigto ayaa maanta guud ahaanba Somaliland ololaha waxa uu lahaa xisbiga kulmiye magaalada Berbera ayaana saaka xilli hore ay isugu soo bixeen taageerayaal tiro badan oo taageersan xisbiga kulmiye taageerayaashan oo markii dambe iskugu yimid xarunta khayriyada ee magaalada Berbera ayaa waxa kala hadlay xubno kamid ah wasiirada Somaliland madaxda xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil haweenku marxalado badan bay soo mareen waxay u xoreeyeen 60kii waxay xoreeyeen 88kii maanta codkay bixinayaan markastana waxa weeyaan xisbiga kulmiye wuxuu siiyaa imisa wasiir baynu leenahay haweena ka xanaaqaya marka laga mujaahidiinta ee ka diidaya walaalayaal waxba ku aamini mayno walaalayaal waxba ku aamini mayno ninka markay xamar ina soo caydo ama waxay naga sheegtay Somaliland ninka jawaabta la gabanaya ee biiska hoostiisa galaya ka walaal waxba ku aamini mayno taariikhda uu halkan ka sheekeynay taariikhda uu cirka ka sheekeynay midna mu ogeyn wax la maray mu ogeyn walaal Somaliland mar waa loo qaxay mar waa loo soo dagaalamay mid sokeeya u dhacay intuba waxa ay ku taagan yihiin nabadda Somaliland ba ayay keeneen intuba waxa weeyaan dhidibada ay Somaliland ku taagan tahay ayay ka mid yihiin waqti badan ma haysano waxaan uga sii soconayaa bal hadda qoladan waxay doontaan ku hadlaan reer wadani wax yar baan oranayaa saaka Cabdiraxmaan oo iyadu eebiyaanay jirin tusaalayn laysasi yaana toosan tahay warwadu dhalato berberi waa laftaada dheer waa laga doortayaan kaga tumay durbaan cod baa lagu siiyayaan kaga tumay ciyaar caleeman daadiyaan calanka kugu dul suray dantaadaad gaadhayo dub lagugu xidhay nimba dhub kulisa loo hambaynaya maxaad noo qabatayo kugu jira qorsha maxaad nagu soo tartaan maanta kugu tawna maxana ka soo hore yaanu ku hordhignaa xilligii codeynta in aynu hawsha iyo shaqadaba sii adkayno gobolka Saaxil xisbiga kulmiye lagula tartamayo waynu ognahay ninkaynu dooranayna waa Muuse Biixi Cabdi oo laga soo sheegay taariikhdiisa iyo go'aanadiisa haladeegayda qofka aan bilaadan ku mahadnaqin Ilaahay uma mahadnaqo Muuse Biixi waxaynu ku dooranaynaa xaq uu inagu leeyahay horta xaq baynu horta ku dooranaynaa ogaada waajib baynu ku dooranaynaa waxaynu ugu dooranaynaa oo in fara badan halkan laga sheegay qofka waxa weeye xoreynta Somaliland raggii hormoodka u ahaa buu ahaa way furatay dadka toonida taariifta dagaysa raacay anagu ma taariibayno Muuse halka ka taariibi maayo halkan laga taariibi maayo xisbiga kulmiye xisbi taariibaya ma aha waa mujaahidkii u soo dhintay waa ninkii u soo dhintay dalkan waa ninka damqaday dhibaatadii la inagu hayay kaligii talihiisi aad baraynagu hayay waa ninkii ka damqaday waxaan idin sheegayaa dabka isku fura reer Saaxil oo dabaan idinku ogahay oo dabaaldegaynaa inaan u diyaar garowno oo aynu isu diyaarino oo aynu soo baxno sideen u codeyn lahayn ugu codeyn lahayn madaxweynaheena mustaqbalka dhow ama maalinta dhow mudane Muuse Biixi Cabdi Somaliland ha noolaato waxaad celinayaa intaa kaambeynku socdo sida iskugu soo baxeen walaalayaal maalmaha waxay noogu dambeeyay labadii maalmood ee ugu dambeeyaan maraynaa waxay looga baahan yahay in la diyaar garoobo maalintii foodka waxba inoogama hadhana qof walbana uu diyaarsado kaarkiisa waqti yar baa inooga dhiman waxaa markaa aynu diyaar garoobaynu ku jiraa sida aa u diyaartihiinna waxaan arkayaa inay tahay si wanaagsan waxa la doonayaa waxa la soo rarayaa dadweyne aad u fara badan waxa la inaga rabaa inaynu dadweynuhu dadka isku xisbiga ah shacbiga kale way iska xigaan waxa la rabaa dadkii la soo rarayay inaad soo dhaweysaan waxa la rabaa inaynu diyaar garowga galno وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بولش تي في مقالة حبيت بربرة